السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكنا وتلفزيون عالمي جاه يونيفرسال تي في حرمتنا دحى مقالة لندن وحنا سوق قرني ساعدها أنا كل حين هو دنيا سوبر سي جرني مت كمان برنامج كذا قار كان وصل قلنا لو ذاقنا داوداشنا ملك اللي قد سنة عالم كجوجان إذا برنامج كان عاون وكذا هذا لأنه جود إحنا مركيت ماده وقاسة شركة إنجول وكم إذا شركة علابت اللي قال لي يحوضن كتركيا حرمتنا وكنت على مقالة لندن عاون جعلنا سؤال بدل ولا حريرة جود إحنا جناعس جوده يولي به مركيت ماده الله حاجة جناعسها sanadahan iyo waliba bilihii ugu dambeeyay oo ay caaw martiino ugu tahay muxibo aan jecelnahay su'aalo badan inaan ka weydiino stuudiyaha koowaadna ila joogta muxibo marka waad ku soo dhawow barnaamijkeena gaarka guud ahaan ganacsiga iyo markay timaado xagga shirkadda Inagol barnaamijka soo dhawow waa dhawa maxamed thank you waayahay su'aalo badan ayaa caaw laga yaabaa in lagu weydiiyo dadku runtii alaabay si buuxsamaan ka hor barnaamijyada intaysa bilaaban aan daawadayaasha xusuusinayna haddii ay inta barnaamijka lagu guda jiro qaybta hoose ee shaashada barnaamijka ka daawanayaan haddii ay inay ka heli karaan telefoon lambarada ay soo wici karaan iyadoo telefoonada aad arki doontiin ee shaashada barnaamijka daawanaysa inay yihiin laba qaybood waa qaybta koowaad oo stuudiyaha telefoon lambarada aad soo wici kartiin oo ku hor qoran yahay studio iyo waliba telefoonada kale ee shirkadda Inagol oo aad kala xiriiri kartiin waqtiyada shaqada ama maalmaha shaqada iyo waqtiyada shaqada muxibo si good waxaa caawa aan jecelnahay dawadaasheena inta qadadkeena u furan inaan xasuusinayno in 10 qofood ay ugu horeysay qadadka telefoonada ee la qori doono magacyadooda ay ka mid ahaan doonaan dadkii uu ku guuleysan doona abaalmarino ay shirkaddu ugu talagashay inta barnaamijkeena loo guda jiro haddii aad ka mid tahay 10 qofood ee ugu horeeyay in barnaamijka inta loo guda jiro nala soo xiriira ama se u suurta gashay qadkiinu soo galan ognahay in badan oo ka mid ah inta barnaamijka loo guda jiro inay qadadku ay buux dhaafaan sidoo kale 10 bishan aan iraahday 25 bishan March haddii ay bidno ayaa aan jecelnahay abaalmarin ay bixin doonto shirkaddu inaynu ka ogaano barnaamijkeena caawa inta loo guda jiro aan u soo laabto si guud waxaad noogu soo koobtaa shirkadda Inagol waxa ay tahay sidaan meelo badan ba uga sheegnay shirkadda Inagol waxa waaye shirkad Turki ah oo sameeyso alaabta guryaha jiifkii fadhigii qolalkii ciyaalka iyo wixii lamid ah shirkadda Inagol waa shirkad aad u weyn hadda moment oo wadankan ay tii maaragtay ku xoogeysanayso sidaan hore u sheegnana Inagol home waxa ay ka dhigan tahay amba waxa ay tahay wixii matalaysaa magac dhan oo magaalo dhan oo ku caan baxday sameynta alaabta guryaha waan gartay marka maadaama ay taariikhda leedahay soo jireenka ee waliba magaca loogu magac daray magaalada ku caan baxday sameynta alaabta guryaha tamacnaheedu wax weeyaan waxay ka duwan yihiin shirkadaha kale Turkiga aad iyo aad waa dhihi karnaa way si guud marka loo fiiriyo qaybaha kala duwan ee leedahay wadankan UK iyo waliba caalamka intiisa kale ilaa iyo meeqa way marka laga reebo kaliya wadankan xarumo ku leedahay wadanka Turkiga oo kale aad waxaan ku leeyahay xarun kaliya maahay waa magaalo dhan oo Inagol home la leeyahay oo leh ilaa iyo laba kun oo warshadood kule waay oo alaabta guryaha uu sameeyso soo marka waxa waaye ma aha meel yar kaliya waa xaafadan aan dhihi karnaa oo shirkadda waaye guud ahaan marka la fiiriyo in badan oo kamid ah Soomaalidu waxay isweydiinaysaa ama dawadaashana isweydiinayaan waxa ay ku kala duwan yihiin shirkadaha alaabta guryaha ee Turkida in badan oo kamid ah ay jiraan magaalada London ay ku badan yihiin ama guud ahaan wadankan UK ee TV-yada Soomaalida iyo waliba Soomaalida xiriir fiican leh maxay shirkadda Inagol uga duwan tahay shirkadaha kale maxamed waa runta shirkadaha aad iyo aad ay u fara badanayaan laakiin shirkadda Inagol home waxay uga bedelan tahay waxay tahay ma taqaana waxa waaye marka hore iyada waxay sameeysaa alaab quality leh bareeskeeda oo shirkad kasta Turkiga oo magaaladan ku taal hadii aad tagto aadan soo helaynin macnaha calaashaan waxa laga yaabaa double inuu yahay bareeskooda meeshan anaga hadda saacadan la joogo aan sameeynayno offer aad u weyn oo ilaa 60% ah hase ahaatee alaabihii kale inta xataa sanadkan 2016 waxaan decide gareynay in hoos loo dhigo si ay ummadda aanan maaragtay wada gada karin iyo dadkii gada karaba ay uga wada faa'iideystaan waayahay daawadayaashan ogahay in badan oo kamid inay jecel yihiin barnaamijkeena nagala qayb qaataan daqiiqada kadib waxaanu daawan doonaa mid kamid ah muuqaalada soo koobaya guud ahaan waxyaabaha shirkaddu ay qabato iyo waxay u taagan tahay intaba waan jecelnahay haddii inta barnaamijka loo guda jiro daawadayaashan inay fursad u helaan in nagala qayb qaataan qaybta hoose ee hashada barnaamijka daawanaysan waxaad arki kartiin daqiiqada kadib laba telefoon oo telefoonka koowaad uu yahay midka stuudiyaha oo daawadayaasha qadka telefoonka nagala soo xiriiri karaan inta barnaamijka loo guda jiro halka qaybta labaad ee stuudiyaha aan iraahday shaashada barnaamijka daawanaysan aad ku arki kartiin telefoon numberka aad kala xiriiri kartiin shirkadda Inagol oo ay tahay shirkad kamid ah shirkadaha alaabta sameeya ee wadanka Turkiga xaruntooduna ay tahay magaalada London haddii 10 qofood ugu horeey barnaamijka aad kamid noqotid ee u suurta gasho waxaad kamid noqonaysaa dadka iyagu ku guuleysta abaalmarin ay ugu talagashay shirkaddu oo 10 qofood ugu horeysa qadadka telefoonada haddii aad kamid tahay waliba qaar kood kulli maaha ama dhamaantood maaha qaar kamid ah la siin doono
dadka ugu soo horeeya qadadka soo gala tobanka qofood waxyaabaha aad ugu tala gasheen maxaa kamid ah haddii ay ku guuleystaanba inay qadka soo galaan caawa waxaan ugu talagalnay qaar kamid a 10 qofood ee ugu horeysa ee telefoonka soo gasha caawa ay soo wactanta inaan siino gift amba 250 voucher ah amba waxaa jira cafe table lagu magacaabo Nesta table oo ah 3 table oo iskor saaran oo kuunaha fadhigaaga aad dhigan kartid iyo wax la mid ah waayahay bal markaana xagga muuqaaladan dib ugu laabano mid kamid a muuqaalada soo koobaya guud ahaan waxa ay shirkadu u taagan tahay oo jecelnahay inta barnaamijka lagu guda jiro in daawadayaashu ay qortaan telefoon lambarka iyo waliba halka lagala xiriiri karo iyo waliba ciwaanka shirkada alaabta guryaha Inagol oo xarunteeda weyn ay ku taalo degmada Croydon ee koonfurta magaalada London bal markaana daawasho wacan muuqaalka ugu horeeya barnaamijkeena caawa waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis ballaaran oo dhammaan alaabta guryaha qiimo dhimistan ayaa socon doonta bilo kooban oo kaliya waxa ay shirkadu qiimo dhimis ku samaysay sida sariiraha jiifka oo ka bilaabanaya 1299 baan oo kaliya sariiraha loogu talagalay qofka kaliya oo leh meelo lagu kaydsado ayaa waxa ay ka bilaabanayaan 299 gani oo kaliya soofaha waxaa xilligan laga dhigay 1300 oo baan kaliya halka alaabta qolka caruurta lagaga dhigay 999 baan oo kaliya shirkadda Inagol Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis gaaraya ilaa iyo 60% dhammaan alaabta guryaha wax lacag dulsaar ah ama riba lagama qaadi doono waxaana lacagta u dhiibi doontaa si tartiib ama waliba bilbil ah haddaba hore u gaar oo booqo xarunta dukaanka Inagol Home Furniture oo ku taala degmada Croydon ee koonfur galbeed magaalada London wixii faahfaahinta dheeraada fadlan kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda waayahay taasi waa muuqaal kooban oo soo koobaya guud ahaan shirkadda Inagol ee shirkadda alaabta guryaha ee laga leeyahay wadanka Turkiga qadadka badan qadka ugu horeeyay nasiib ku yeeshay iyadoo sidaan sheegna 10 qofood ee barnaamijkeena caawa nagala qayb qaadatay 10 ugu horeysay nasiib u yeelan karaan inay kamid noqdaan dadku shirkadda ugu tala gashay inay siiso abaalmarinada ama kamid ah dadka barnaamijkan ku xiran guud ahaan markay timaado xagga shirkadda iyo ganacsigeeda intaba qadka ugu horeeyay jecel markaan fursad inaan siiyo qadadka kalena aan u sii gudbo iyadoo qaybaha dhaxanta barnaamijka loo guda jirana aan su'aalo badan weydiin doono martida barnaamijkeena qadka xiga halo assalaamu calaykum waayahay daawadahaas uu ka go'ay daawadaasha kale waxaanu ka codsanaynaa inay ka fogaadaan TV-ga internetka barnaamijka ay ka daawanayaan si codkooda fasaxa aynu u maqalno inta loo guda jiro barnaamijkeena qadka xiga halo assalaamu calaykum waayahay qadkaas waanu ka xunaa waanu ka gudbaynaa iyadoo qadadku ay badan yihiin qadadka kale intaan aanu gudbin waxaan jeclahay inaan dib ugu laabto qaar kamid a muuqaalada oo inoo sharaxi doonto muxibo iminka sidaad aragtid ama ay daawadayaashu arki karaan lii sheegay qadadku inay buuxaan waaya qadka kale aan u laabto halo assalaamu calaykum عليكم السلام fadla magacaaga iyo halkaad joogtid هلو waan ku maqalnaa fadla magacaaga iyo halkaad joogtid waxaan joogaa magaalada Birmingham walaal magacaagu waa waxa magacayga hooda la yiraahdo hooda waxaan ka codsanaynaa ka fogaatid TV-ga internetka barnaamijka ka daawanaysa si codkaaga oo fasaxa aynu u maqalno hooda la yiraahdo walaal waaya waxaan ka codsanaynaa ka fogaatid TV-ga iyo internetka barnaamijka aan ka daawanaysid hooda oo joogta magaalada Birmingham qadka ay ugu jirto inta hooda ay kasii fogaanayso qadka ayraada TV waxaan ku weydiiyay waaya hooda soo dhawow waan filaya barnaamijkan inaad la socoto hore dhiciisa waa mahadsantii walaal waan idin salaamayaa marka ugu horeysa waan ka qaadna hooda soo dhawow waxaan idin weydiinayaa ha magaalada Birmingham ma keentaan alaabada shirkadda ii weydii waayahay hooda oo joogta magaalada Birmingham qadka ay ugu jir hooda muxibo waxaan geynaa UK meel kastoo kamid ah ma aha Birmingham oo kaliya waxaan geynaa ilaa iyo afartiisa geesood UK waayahay weliba aan arkayay in magaalada Birmingham ay tahay magaalo aad doonayseen markaan aqrinayay qoraalada aad doonayseen in aad ku sameyseen barnaamij weyn oo aad ugu talagashay bisha barakeysan ramadaanka ka hor Soomaalida joogto magaalada Birmingham waayahay hooda waad mahadsan tahay waxaad reebtaa telefoon lambarkaaga inta loo guda jiro barnaamijka aad u reebi kartid qaybta kale stuudiyaha si aad ay kula soo xiriiraan maalmaha shaqada ama waqtiga shaqada ay si ku siiyaan fariimo iyo aragtiyo iyo warbixino dheeriya hooda oo joogta magaalada Birmingham aad bay u mahadsan tahay waaya qad kale intaan u gudbinaan dib ugu laabto mid kamid ah muuqaalada aynu soo qaadana jecelahay muxibo barnaamijka caawna la joogtay inay inoo dulmarto muuqaalkan oo aan daawano daqiiqado ka hor sida iminkay daawadaashu ay arki karaan muxibo inoo dulmar waxyaabaha qiimo dhimista ah miiskaas iyo waxaa jiro fadhiyo amba saaloota qof wal sida u yaqaano jiifaf badan
sida hurdadaas oo kaleentood tii hadda aad soo dhaafteen waxaasoo dhan waxaa laga dhima price aad iyo aad u weyn. waxaa jira qaar kaleentood oo ilaa 2700 aan gadi jirno hadda aan gadayno 1000 iyo waa kana waxaa kamid ah muuqaalkaas hadda arkaysaan 1300 waxaa kaloo jira qolalka ciyaalka waxaa kamid ah sariirtan oo kaleentood markii hore waxaan gadaynay 500 maantana waxay ay ku fadhisaa 299 waxay wadataa even joodarigeedii iyadoo kaliya ma ahan salootadoo kaleentood wax weyn baan ka dhimnay ilaa iyo kun baan gaarayso. qilmihii qolalkii hurdada oo kaleentood hadda qolkan aad arkaysaan waa complete waa study table-kii sariirtii iyo wixii oo dhan oo iswada wata waxaan ka dhignay half price. soofahan oo kaleentood hadda waa midkay ugu jecel yihiin Soomaalida qaarkeed markay timaado meesha aad ay ula dhacaan. miiskan oo kaleentood waxaan ka dhignay half price. imisuha markii hore miiskaas wuxuu ahaa 1600 haddana waxaan gadaynaa almost half price waaye compound. waya markay timaado Soomaalida guud ahaan midka tiri way jecel yihiin aad xustay waa mid kamid ah midka ay aad ku gataan waa aad ay u gataan qaafku waxa waa qof walba dooq uu leeyahay laakiin waa kuraas ay aad iyo aad marka qofka uu soo galo oo aad uga helo haddana waxay ka samaysan tahay leatherka ma aha leatherkan waxaa la dhahaa nabuka leather waxa waaye stone washed around Soomaalida waxay ay dhihi lahayd leatherkaas kale waa leatherka ay Italia ay ka sameysay boortooyinka suumanka kabaha iyo wixii lamida ay ka samayso marka waxba ma kaaga noqonayaan hadduu cad yahay xataa waa leather markay arkaysid waxaad u malaysaa dhar maahnimo u malaysid leather. waayahay aad baad u mahadsantahay runtii su'aalo badan inoogu dhiman yihiin qadka xiga ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa iyadoo qadadku ay badan yihiin qadka xiga halo assalaamu calaykum wa calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh fadlan magacaaga iyo halkaad joogtid Jamila la dhahala sarajooga Jamila soo dhawow adiga iyo hooda waxay kamid yihiin 10 qofood ee ugu horeeyay barnaamijkeena caawa ee qadadka telefoonada ugu horeeya oo fursada laga yaabo inay shirkadu siiso abaalmarinada si ay kula soo xiriirto marka kooda waxaan ka codsanayaa in intaad hawada ka bixin aad reebtid magacaaga iyo lambarka fikir aragtay su'aal inta waad weydiin kartaa martida barnaamijka Jamila waxaan weydiinaa laftaraan deganahay marka maxay tahay dukaamadooda laftar ma ka furan yihiin masalan maxay tahay haddii aan ka dalbado qalatada inta malay keenaya mise inay ugu qaadanaysaa waayahay qadkii maxay tahay tartiib ma u bixi karaa waayahay qadkii ugu jir Jamila haddii su'aalo kala dheeriyana aad weydiisid muhiba ha Leicester waxaan ku leenahay customer badan sida Birmingham iyo Leicester waa meesha ugu weyn ee customerkeena badankiisa ay ka yimaadaan waan geynaa Leicester lacagtan waxa ku bixi kartaa kaarkaaga as finance marka waxa la jagreynaya qofka credit recordkiisa hadduu credit recordkiisa uu fiican yahay qofku wuxuu iska bixin karaa ilaa inta uu awoodo ilaa waxaan haynaa up to 4 years aan haynaa so qof wuxuu ku xirantaa waxa ayada markaas ay juice gareysatay tirada anigu intaanan awooda intaanan bixi karaa sanad 2 sano 3 sano 4 sano waa qofku ku xirantaa iyo cadada alaabta inta uu qaatay marka waa ku dhiibi kartaa waa iska yareeyn kartaa Leicesterna ku keeni karnaa waxa weydiisoo kale su'aasha deliveryga oo kale intood waxaan dhahnaa waa up to 12 weeks way ka soo hormari kartaa waxay ma kartaa 4 weeks ka gudihiisa 5 weeks ka laakiin qofka marka aad tiraahdid 4 weeks ama 3 weeks ku keenay alaabta ay ku imaawaysaa qaldan marka waxaan dhahnaa 4 weeks ilaa 12 week laakiin way ka soo hormartaa inta badan waxay ku xirantaa markuu containerku ready yahay oo soo dhaqaaqayo qofka markii alaabteeda dalbato alaabtina ay ready tahay hore loogu soo diraa marka qofba si ugu timaada marka alaabta waayahay Jamila waad mahadsan tahay waxaad reebi kartaa telephone numberkaaga si haddii aad ka mid tahay 10 qofood ugu horeey barnaamijkeena caawa ama abaalmarinada helaya ay kula soo xiriiraan shirkadu Jamila oo joogta magaalada Leicester aad bay u mahadsan tahay way hadda imika nagu soo biirto waxa barnaamijkeena martiina uga muxiib oo ka socota shirkadda Enagol ee ah shirkad kamid ah shirkadaha sameeya alaabta Turkida isla markaana loogu magac daray magaalo la yiraahdo Enagol oo guud ahaan magaalooyinka lagu sameeyo alaabta guryaha qadadka kale intaan u gudbin waxaan jeclaan dib kugu soo laabto ololahin ugu balaaran qiimo dhimista waxa tiraadeen 60% ama 60% ama si waxba ka dhiman oo 70% baa ka wadin may waa 60% qaarna way ka badan yihiin 60% qaar waa 60% sida store-ku kale intood alaabta taale oo store clearance sida hore u sheegay store clearance iyo waxaan sameeynaa warehouse ka alaabta ku jirta clearance-kiisa marka waxa laga yaabaa dad inay ku helaan 60% ka badan 70% xataa inay ku helaan marka qiimis ma ahan xataa kaliya store-ki iyo warehouse inta tiilay waxa jiraan alaabo kale intooda cusub oo qofka loo dalbi karo laakiin aad iyo aad aan u jibinay sida hadda qaar sariiraha qaar aad arkayseen qolalka hurdada qaar aad arkayseen ma ahan kaliya inta meesha taalo waa loo dalbaya qiimahaas loogu dalbaya alaab cusub oo warshadii hadda ay soo saartay
waayahay qaar ka mida muuqaalada aad sheegay sidan dib ugu laabanna si daawadaasha u fahmaan iyadoo muuqaalkasan jeclahay inaad u dulmartid daawadaashana sida imika shaashada ay ka arki karaan daawadaashu kuwa la dhimay aad jecelahay inaan ogaano waa kuwan afrika hurdadan waa la dhimay lacag xoog laga dhimay ayadana qadadan oo kale aad iyo aad loo dhimay ayadana sidaan hore idinkugu sheegay waxa kale intooda dhiman jiifka badankiisa lacagta waa laga dhimay fadhiga kale waa laga dhimay qadadii waa laga dhimay in alle inta arkaysiin iyo in kale intooda badan aanan hadda ku jirin muuqaalkeeda meeshan kulli waa la wada dhimay tanoo kale intooda waxaa laga dhigay 1300 sida idin sheegay 2700 2900 intuu dhaxaysa la gadi jiray 500 baanay ahaydatan macalin joodarigeeda oo orthopedic oo anti allergic oo ciyaalka aad iyo aad ugu fiican hadda waxaa laga dhigay 300 oo kaliya soofaan arkaysan waa soofii ugu qalisanay in gool home aada loo dhimay qolkan wuxuu ahaa 2200 jajaba amaleyna hadana wuxuu marayaa 1000 baan oo kaliya waana qolka carruurta ha 800 ilaa 1000 ilaa 800 u dhaxeeya hadda marka soofahan hadda kan hadda idin sheegay waa isla asagii waxaas alaaba arkaysaan iyo in ka badan aadan hadda muuqaalkeeda aadan wada arkeynin oo dukaanka uu idin hayo oo haddaad ka dalba kartaan bugaagta aad ka dalba kartaan haddaad online ka aragtaan kulli alaabta wax alla waxa aan hayno oo dhan waxbaa laga dhimay ma aha waxa kaliya warehouse-ka iyo stooga kaliya noo yaalo meel walbo aad ka arki karta alaabtooda waxbaa laga dhimay waayahay aad si aad baad umahadsan tahay qadadka kale jeclaba markaan inaan gudbay iyadoo qadadku ay badan yihiin waxaad tiraadeen in 10 qofood ugu horeysay qadadka teleefanada caawa aad guddoonsiinaysiin abaalmarin ee barnaamijka nagala qayb qaata kulli ma wada aha baad tiraadeen qaarkood inay heli doonaan qaar kamid 10 qofood ugu horeysa waxay leeyihiin waxay ku guuleysan doonaan hadiyado waaye aad baad umahadsan tahay dib ugu laabto markay timaado shirkadiina maxay uga duwan tahay shirkadaha kale qaasatan markay timaado Soomaalida iyo waxyaabaha ay qabtaan iyo kulug lahaanshahooda waxay uga duwan tahay anaga marka horeba joogno meesha Soomaaliya oo si maaragtay aan la soo koobi karin u soo dhaweynayno si aan la koobi karin wuxuu ugu qabanayna maaragtay uguna hagar baxayno wixii ayaga ku fiican waxaan ku fiicnayn kulli aan u kala sheegi karno alaabtoodu quality xooga leh waa alaab quality leh ma ahan alaab mata alaab raqiiso lagu raado quality ay leedahay barito oo marka guriga geysatan alaabtii aysan quality lahayn ma aha waa alaab tayad leh oo fiican wixii uga bedelayn oo kale sida hadda idin sheegnay qiimihii 2016 oo aad iyo aad aan u dhintay oo san ahayn kii hore oo kale waxa kale jarashan iyo 20 bishan waxa kale oo aad iyo aad in gool home ay uga duwan tahay shirkadihii hore u jiray ay uga duwan tahay waxay tahay waxa jirto Somali charity oo kale caawiso ciyaalka masaakiinta ciyaalka indha la'aanta sida aawad ogtiin aan Soomaalida UK degan oo dhan ay wada taqaan oo Daahir Cali Kulmiye madax u yahay oo asaga uu hogaamiyo Alpha Trust waa aragteen wixii ciyaalku u qabato Soomaaliya waxay caawisaa ciyaalkii waxay u fiiqdaa indhaha waxyaabo badan oo la soo koobi karno u qabtaa qeyr Allah ka siiya ajirkeeda iyo xasanaadkeedana Ilaahay uu maaragtay haleeli doonaa habeenkaas 25 bishan oo jimcaha ah waxaan bixin doonaa TV set ala bixin doonaa waxaan bixin doonaa gift kalentood oo giftyaal kalentood la soo koobi karin sida idin sheegnay table ko kalentood lagu guuleysan doonaa waa 3 table oo iskor saaran oo koonaha aad dhigan kartid oo hadda doonto qofku maaragtay markii lagu yimaado mid walba koonihiisa qof uu dhigi karto waxa maaragtay cabitaan cunto haday ahayd waxa aan u saari kartid marka waxa heli doontaa voucher ajiro kalentood voucher kalentood qof alla qofka habeenkaas xafladaas ka soo qayb gashay 25ka waxaana ku caawinaynaa ciyaalka masaakiinta ee maaragtay charity-gan oo Daahir Cali Kulmi uu leeyahay Alpha Trust waa hadiyooyinkaas aan dadka sii doono iyo barayse kalentooda ilmaha xanuunsan oo maaragtay Soomaali joogo aan sii doono marka waxay dadku ka jawaabi doonaan su'aalo miya ma qaab sidee dadka habeenkaas alaabta giftiga ma liska helay Maxamedow qofku waa in uu ku guuleystaa amba uu sheega su'aalaha aan weydiin doono habeenkaas qof alla qofka ka soo qayb gasho ee su'aalaha anaga aan weydiino ka jawaaba wuxuu ku guuleysan doonaa TV ha ahaato giftiyaal kalentooda hadda aan ku soo wada goobi karna ha ahaato sida idin sheegay table-kaas ahaato waa surprise waxay noqon doontaa wax maaragtay aanan hore u dhicin kullay waayahay waa habeenka 25 bishan March sanadka 2016 oo ay shirkadda Inagole alaabta guryaha ay ka mid tahay shirkadaha ka qayb gali doona xafladda ay sheegtay dhici doonto 25 oo ay fududeeyeen qayb kamida isla markaana
ay guddoonsiin doonaan abaalmarino dadka iyagu markaa kasoo qayb gala 25 bisha abaalmarinadaasna ay kamid yihiin sida sheegtay qaasatan TV-ga iyo waxyaabaha kale markaa aad tiri waa wax aad jeceshiin inay surprise noqdaan ama habeenkaas dadku markay yimaadaan ay ogaadaan aan kugu daray maxamed oo giftiga kaliya ma ahan oo Soomaalida halkan joogta la sii doono Inigool Home waxa kaliya ay sameeyso qiimo maaragtay shirkad kalentooda wadankan ka dhisan amba ay ka sameeysan aysan wali sameeynin waxa ay tahay in ay caawiso ciyaalka ay gacan ka siiso Dahar Cali Kulmi in ay la caawiso ciyaalka xanuunsan ee wadanka jooga in la aan ay gudaha dalka waayahay aad baad u mahadsan tahay waa 25 bishan March hadii ay beedno dib ugu laabta qadadka badan ruuxantii badan oo kamid ah daawadayaasha ay muujiyeen dulqaadan oo kaga mahad celinayna qaasata 10 ugu qofood ugu horeysay qadadka soo buux dhaafiyay waxay kamid ahaan karaan 10 qofood oo la soo xulay qaarkood inay ku guuleystaan abaalmarino waa sida ay sheegtay Muxiba oo ka socota shirkadda qadka xiga ee nasiib ku yeeshay barnaamijkeena caawa halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة fadlan magacaaga iyo halkaa joogtid magacayga Anisa lidada waxaan ka soo hadlayaa wadanka Holland Anisa oo joogta dalka Netherlands Anisa soo dhawow sidee lagu yahay Holland ما شاء الله waan ugu fiicayahay idinkan waa in salaamaya adiga gabadha waan ka qaaday fikir aragti su'aal intaba soo dhawow ما شاء الله horta alaab aad u qurux badan bay wadaan marka faashikoodana aad baan uga helay marka waxaan weydiinayaa gabadha xarun ku leeyihiin Holland waayahay qadkii ugu jir waan garta qadkii ugu jir ama macaamiil ma jirta aad xagga gaarsiisiin ama xarun ma ku leedin intaba may hadda kuma laha laakiin insha Allah taala waa gaari doonaa waana geey doonaa shirkadda hadii Ilaahay yiraahdo marka Anisa ma waxaad rabtay inaad wax ka dalbatid oo xaruntooda tagtid ma waxaad leedahay macquul gal ma tahay in alaabta lagu keeni karo hadaa dalbatid ma yaha labadaba haday lacala ay ku leeyihiin xarunna waan tagi lahaa sida kaleeto oo wax isku gaarsiin karna waa weydiinayaa ma jiraan macaamiil markaa wadanka joogta may ilaa iyo hadda ma jirto laakiin waxaan ku tala jirnaa in Europe afartiisa geesood ay warshada gaarto insha Allah taala hadda lambarkaaga dhaafto waa kula soo xiriiri doonaa mar alla in markaan isku dayno inaan geeyno haddii alaabta oo inta lagaaga soo keeni karo علشان أكد البتيت أو هيست عدي كو قادو كو جيست ودن كينا تذا كارجو وكلنتود أم بمارت الوانا بحاجر الصومالية نانا لسه حرير أوكي لمبر كي استوديو قريبة إن شاء الله ويا هاي استوديو قريب تاني سوجوكتو ودن كندا الآن ساد بوما سنتا قدرتك كلا نسيب كوي شبر برنامج كنا لقيا بأن النساء يولي بهذه الجميلة قدرتك كلا أو صورتك على برنامج كنا كمان قدام كوا لا حول إني كوجو ليستان سنة أي محب الشركة أبال مرينا إنا هلان قدرتك كلا ينجعل بالمكان إننا نقدبو يدو سؤاله أي بديهين قدرتك حاجة إن نسيب كوي شبر برنامج كنا عاوة هلا السلام عليكم عليكم السلام تفضل مقعاقي هالكا جوكتين ولا لندن بنشوفها magacaagu أم سعيد أم سعيد soo dhawow sidee lagu yahay London dhinaca ka joogtid الحمد لله والله fikir aragti su'aal inta ba soo dhawow ها سؤال وان قضاء haye muxiba way ku maqashaa ولا هاي ولا waxaan doonayaa walaalo yani taageeraha sinkalka ah caruurta mad maqlaysaa si fiican baan ku maqalnaa Umu Saciid taageeraha sinkalka ah caruurta ayaa rabaa laba xabo iyo furaashadooda maxay siinayaan walaal ma ku hadda arkaysay mise kuwa kale Umu Saciid hello Umu Saciid ma kuwaad arkaya walaal kuwaad arkayso hadda aan lahay waxaa la gadi karay waxaa la gadaa 299 waa 299 sariirta iyo macalin joodarigeeda sariirtii joodarigeeda kaliya ma waxay leedahay storage aad iyo aad u weyn oo aad ku xareysan karto waxa la waxa tamacdo waayahay marka waa laba leedahay Umu Saciid ma reebta lambarkaaga ha waayahay okay barid waxaan sameynaa anaa ku soo wici doono marka waxaad ii sheegtay walaal saacada la imanayo habeenka 25ka waxaa la imaan doonaa 6 habeenimo waa 6 fiidnimo ilaa iyo 12 PM-ka 12 PM midka koowaad Umu Saciid wax weeyaan 6 fiidnimo ilaa 12 waa midka 25 dhacaya waa xaflad ay shirkadu sida ay muxiba sheegtay ay kamid yihiin shirkadaha fuudeeyay isla markaana habeenkaas ay doonayaan in cidii timaada ay fursadaha hadii ay su'aalaha la weydiiyay ay ka jawaabaan ay heli karaan abaalmarino taasi waa habeenka xafladda laakiin shaqo ahaan iyo maalinta shaqada berito kale ku soo wici karaan hadii lambarkaaga aan reebtay
waa umu saciid oo joogta magaalada london aad siyaad baan kaga mahad celinayna haddii 25 timaadidna waad arki kartaa marka mobilka ma inasiya mobilkayga mise laynkaan isiya labadaba u Labadaba reeb walaalo. stuudiyaha labadan dib kuugu celinayna labadaba u reeb adoo raaliya umu saciid waaye dadka ku jir umu saciid dib ayaa loo celinaya umu saciid oo joogta magaalada london run ahaantii dadku waxay filanayaan 25 in ay ku guuleystaan markay timaado abaalmarinadaad ballan qaadeen amase habeenkaa dhici doona haddii ay beedmo aan dib ugu soo laabto inta ugu badan su-aalaha soo laabto waxaa kamid ah in soomaalidu ay yihiin dad aad iyo aad ugu xiran shirkadahan ganacsiga ee turkida khaasatan alaabta guryaha waxaad ku guuleysateen inaad xiriir la sameyseen qaar kamid a jaaratiyaasha soomaalida maxaa kaloo inii qorshaysan waxaa noo qorshaysan surprise waaweyn waxa aniga aan jeclaan lahaa inaan kulli halkan ka wada sheegin waayo dee shirkadihii competition badan bay ku jiraan koobigii sidaad aragtay waa laswada koobiyeyna amba wixii maaragtay waxbaa la imaanaysaa wixii lagaa kor qaadana waa lagaa qaadana laakiin insha allahu tacaala maxamedow waxaa imaan doono waxyaabo fara badan oo ay soomaalidana cajibgeli doono turkida kalentoodna ay kolley la yaabi doonto iyo shirkad kastoo soomaalida ku xiran wadankani waayahay haddii ay beedmaan aad baad umahadsanta haddii ay beedmo aan dib ugu laabto qadadka teleefonada in badan oo kamid a ay dulqaad muujiyeen qadka xiga ee nasiib ku yeesha barnaamijka iyadoo 10 qofood ugu horeysa ay kamid noqon karaan dadka iyagu abaalmarinada heli kara ee qadka caawa u suurta gasho qaarkood kulli ma wada aha siday tiri muxibo qadka xiga ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته fadla magacaaga iyo halkaad joogtid والله حليمة لا يدها برمجان بتصورها xaliim oo joogto magaalada birmingham xaliim soo dhawaan filaya barnaamijkeena inaa la socotay وأنوه والله وأنا السلام يدي قبل waad mahadsantahay waxaway waan aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa idinkuna soo dhaweynayaa telefishinka nooga barnaamijka nooga soo saarteen adiga mudan anigu kasta marka dukaankaan ahay nantara si fiican baan isu naqaanaa waan hambaliyeynayaa dee waxaan leeyahay dadka kale kusoo dhawaada kusan maasha allah marka waxaad kamid tahay xalima dadka macaamiisha ee tagay xarunta ganacsiga ee Enagol ee ku faraxsan ayaad leedahay hawshii lagu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay caawana waxaan usoo galay dasabada inaan hadiyadaha ka qayb galo maahan anigu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wixii aan ka qaadan oo faraxsana waayahay Masha xalima Allah. qadkii ugu jiro waxaan jeclaa muxiba inaan u gudbiyo muxiba xalima waxay qofka leedahay waa ku salaamay walaal waa kaa qaada xaliimay waa kugu soo dhaweynayaa maxay tahay barnaamijka iyo telefishinkaba dee dadka waano intii maxay tahay customarka ama ay taqaano ama maxay haytay alaabtayda aragtayba aad baan ugu jeclaadeen oo ugu mahadinayaan inay mar kaleeto iyo mar kaleba ay dukaamada yimaadaan oo ka fiirsadaan oo ay cajab geliso insha allah waa mahadsan tahay xaliimoy waayahay Xalima xalima sidaa sheegtay. weliba waxay sheegeen in magaalada Birmingham ay imaan doonaan haddii beedmo bisha barakeysan ramadaanka ka hor intaan la gaarin oo ay ku qaban doonaan bandhig loogu talagalay in lagu soo bandhigo alaabta guryaha laga yaabay magaaladaada haddii la imaadana inaa imaanaysid waa imanaya insha allah waa imanaya customarka iyo saaxiibada iyo maxay tahay familigaygana waa iman doonaan Masha Allah. welcome baan leenahay Birmingham waa sugaynaa wax badanna waa sugaynaa in dukaamadaas oo kale ay yimaadaan maxay haytay de waana fursad dahabi ah oo maanta maasha allah aada uga gabar soomaaliyeed noo joogto alaab fiican oo tayarina aanu ka helno waayahay waxaan kaa codsanayaa xalima adoo raalliya inaad reebto teleefon lambarkaaga labadaba Waan haddii hayaa aad teleefon awoodid lambarkeeda. waa haysa soma Telefonkeeda okay ayadaa kula soo waa xiriiraysa kastamarkeena kastamarada ugu waaweyn kastamarkeena ku jirtaaba xaliimo waayahay ayadaa kula soo xiriiraysa hadday kamid noqoto dadka ku guuleysta barnaamijkana caawa khaasatan dadka la xulan doona ee barnaamijka ugu soo horeeya qadadka waynu arki doonaa dareen sidaa ayay ku dareensiinaysaa in qaar kamid a macaamiishaada ay saas dareemayaan dareen aad iyo aad u weyn waayo waxaa ogaanaysaa shaqada aad qabanaysid in ay maaragtay soomaalidii ay ku faraxsan yihiin dadku uu maaragtay farxad gelin karo waxa alaabta hadday qaataan ay ku faraxsan yihiin servicekan sameynayna ay ku faraxsan yihiin marka waa wax aad iyo aad u weyn maaragtay markaad maqasho customerkaaga iyo soo wactamaayo kule maaragtay waxaan sameynay ii sheeg service aad iyo aad u weyn waayahay aan dib ugu laabto shaashada iminka barnaamijka daawanaysid sida sariirahaas oo kale waa kuwa 60% qiimo dhimista lagu sameyn filayo ha sariirahan oo kalentood waa kuwii hadaataan ku sheegay mar kalentood waa sariirihii aan aad iyo aad iyo aad u jabinay waa 2,000 iyo dhowr sariirihii la gadayay maanta waxaa la gadayaa 1,000 iyo dhowr marka waa fahmi kartaa inta laga jibiyey waxaa laga jibiyey wax aad u weyn gabadhii haddaad soo wactamaysana sariirta ay sheegaysay ilmaha waa taasa wax alla waxa aad arkaysaan aad ujeedaan qolalkan ilmaha waa set waa study table word armaajadii sariirtii wixii oo dhan kursigani wuxuu ka samaysan yahay hadda waa leather ma aha kursi maryo ah waa leather
waxaa ka dhigan kartaa haddaad doonto maryo haddaad doonto leather teebladii tayad leh oo ka samaysan solid wood oo qori sax ah waa la jebiyey bareskooda sidaan idin sheegay wax alla waxaad arkaysaan haddaad online ka gashaanna waxaad arki doontaan alaab kastoo alaabtaad soo dalbataan waxaa ka ridnay press aad iyo aad u weyn marka inta badankooda waa 60% up to 60% waaye inta kalentoodna maaragtay maxamedow waxaan ka dhignay lacag aad iyo aad u weyn still waa kana waaqa qadooyinkaana qofka gurigiisa dhigto waxaan umaleynaa inuu habi ku noqon doono hurdada sidoo kaleentood wax alla waxaa qaadataan kolley ku farxi doontiin qiimahana London meel aad ka soo helaysaan kolley ma jirto waayahay aad baad u mahadsantahay muxubo barnaamijka caawa martiin ooga daawadayaal qadka qaybta hoose shashada barnaamijka in badan oo kamid ah daawadayaasha arkaan haddii stuudiyaha qaybta koraad wacdid waa telefonka eber laba eber stuudiyaha sida tooska barnaamijka uga qayb qaadan kartid oo haddii ka mid tahay daawadaha ugu horeeya daawadayaasha ugu horeeya laga yaabee inaad ka mid tahay kuwa loo xushay inay ku guuleystaan abaalmarinada waa siday tiri muxibo halka stuudiyaha qaybta kale shashada barnaamijka aad ka arki kartiin telefoon lambarka kale uu yahay mid kale la xiriiri karo shirkadda ganacsiga Inagol waliba maalmaha shaqada iyo waqtiga shaqada ee waqtiga magaalada London waayahay qadka xiga in nasiib ku yeesho barnaamijkeena caawa iyadoo qadadku ay badan yihiin su'aalo badanna ay inoogu dhiman yihiin muxibo qadka xiga ee nasiib ku yeesho barnaamijkeena halo assalaamu calaykum halo calaykum salaam fadlan magacaaga iyo halkaad joogtid magacayga Jija Calabeed ahaan London ka soo hadlaa Jija oo joogta Leicester daawadihii labaad ee jooga London miyaa tiri waayahay Jija Leicester inaad tiraan filaya raalaho daawadihii labaad aad tahay oo jooga London ee barnaamijka nagala qayb qaata fikir aragti su'aal intaba soo dhow Jija waan ku maqalnaa Jija haye soo daa su'aasha okay hala si fiican ku maqalnaa Jija bo waxaan rabaa inaan weydiiyo muxubo kuraasta qadada rabaa iyo miiskooda oo madow black intay hayaan waayahay kuraasta qadada iyo miiskooda madow waxaan jeclahay inaad qad ku jirtid si aad haddii su'aalo dheeri aad u doontid ama u doonaysid ba inaad usii weydiisid muxiba waan haynaa asagoo black iyo brown isku daran ah asagoo black and creamy ah asagoo black liis ah kala kasta jeceshahay waan haynaa waayahay marka waa heli karaysaa kuraasta maxamed oo kale intood qofku wuxuu ka dhigan karaa badana kalarka anaga inoogu badan aad iyo aad ugu badan waxa waay creamiga amba cadaanka creamiga cadaankana waa aragtay guryahan wadankan Ingiriiska aad iyo aad ay u yar yihiin soo marka madow dhigtaanba brown dhigta guriga wuxuu noqonaa wax yar oo kooban oo cadiiliya laakiin marka light color ka dhigto sida maaragtay Turkiyada hadda ay u isticmaashaan bay u soo saarto wuxuu noqonaa guriga nafis wax yar oo weyn maaragtay I know in Soomaalida badankeeda ay ka cararto kalarka cadaanka ah amba brownka ah ba wuxuu tusinayaa amba u sameeynayaa inuu gurigeedii u ekaysiyo wax weyn waayahay Jija oo joogta London Jija ay la socotaa wala socdaa creamiga iyo marka caruur qabtay wasaqda aad u qabanaa taas way oo ay Soomaalida uga cararaan Soomaalida u qaadana blaaga may waa run laakiin ma qabto haddaad fiiriso miiska markii la soo saaray korkiisa markaa fiiriso ma aha miis wax ku dhagayaan ma aha waa miis laws waxaan ku tilmaami karaa af Soomaaliga wuu ku yar yahay moogta laakiin marka taawato waa miis easy la dhaqmaayo waxa soo haro kaleentood maryaha laga sameeyo kuraasta oo kaleentood waa stain free waxa loogu talagalay ciyaalka haday gacan ku taabtaan haday wax kaaga daataan ma u baahnid xataa inaad chemical wax aad u isticmaasho waxa uu isticmaalaysaa oo kaliya alaabta baashad ku dhaqato maaragtay vanish ahaato very ahaato wixii taasay ibiyiro diiranaad ku sameynaysaa waa marsiinaysaa waa stain free waxba kuma dhagaan marka kursiga ciyaala ii joogo waa creamy oo ka cabsanaa iyo waa colorkaas uu leeyahay maaha waa stain free wasaqi kaaga dhigi mayso easily no u tirtirin kartaa waayahay Jija oo joogta London Jija filaya stuudiyaha labaad in telefoon lambarkaaga lagaaga reebay oo aad ka mid tahay daawadaasha barnaamijkeena haddii aad fursadda ama nasiib ku yeelatid ku guuleysan kara abaalmarinada waa filaya Jija in aad telefoon lambarkaaga reebtay waayahay Jija waxaa la sheegay stuudiyaha labaad in meesha lagala xiriiri karo ay ku reebtay si loola xiriiro haddii ay ka mid tahay dadka ku guuleysan kara abaalmarinada way qadka xiga ee nasiib ku yeesho barnaamijka intaan ugu gudbino waxaan jecelahay markaan dib ugu salaabtay su'aalo kala gedisan oo la xiriira markay timaado ololahiina ah 60% ilaa iyo imisuu soconaya goorma soo bilowday waxaan bilownay bishii hore dhexdeeda qiimo dhimista qiimo dhimista sorry 60% bishii hore aan bilownay cabaaran sii wadi doonaa kolley ilaa iyo warehouse-keena iyo store-ka oo clear uu ka noqdo 60% waxba ma aha markii alaab aad dalbanaysa xataa wuxuu noqon doonaa Inagol Home dukaanka kaliya ugu jaban oo alaabtiisa ay seel ahaan doonto continuously sell aan dhamaanin oo kaleeto aan ahaan doonaa
laakiin boqolkii 60 waa warehouse-ka iyo store clearance-ka waayahay magaalada London ma laga yaabaa inaad xarumo badan ka samaysiin oo aad ku sii faaftiin qaasatan xaafadaha iyo degmooyinka Soomaalidu ku badan yihiin aad iyo aad waa ku tala jirnaa inaan aad iyo aad uga sameeyno dukaaman kuna wada London waxaan ugu horeey doonto West London sida oo jecelnahay iyo North London hadii waayahay muhiba oo barnaamijkeena caamarti ku ah hadda daawad iminka ugu soo biirtay waxaan daawanaysaa barnaamij gaar ah oo ku wareysanayna muhiba oo iyadu kamid ah shaqaalaha shirkadda Inagol oo kamid ah shirkadaha alaabta ee laga leeyahay wadanka Turkiga waliba alaabta guryaha ayna caaway ka hadashay saddex qaybood oo qaybta koowaad inay sameeyaan qiimo dhimis ballaaran oo ilaa 60% iyo waliba inay sameyn doonaan hadii beedno 10 qofood ugu horeysay qadadka telefoonada barnaamijkeena caawa nagala qayb qaatay inay kamid noqon doonaan qaarkood kuwa ku guuleystay abaalmarino iyo 25 bisha March ee sanadkan 2016 xaflad ballaaran oo ka dhacaysa magaalada London inay fuudayeen qayb kamid ah xafladaas oo ay ku soo bandhigi doonaan alaabtooda isla markaana dadka ka soo qayb gala xafladaas oo loogu talagalay mid lagu taageeriyo dadka tabaalaysan ama dadka dhibaatadu haysatay gudaha dalka in dadka ka soo qayb gala habeenkaas fursad u heli doonaan inay abaalmarinada ay su'aalaha la weydiiyay haday ka jawaabaan ay heli doonaan abaalmarino qaali ah aad baad u mahadsantahay muhiba qadka xiga ee nasiib ku yeeshay barnaamijkeena caawa halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله. fadlan magacaaga iyo halka joogtid وعبدي والله جوجو. cabdi oo soo dhaw filay barnaamijkeena in la socotay qaybihiisii hore شفت عن. soo dhaw su'aal aragti fikir intaba لي سؤال وحقبة إن استرجع عيالك. haye أو قوة إسكرسار كا. haye قيمة هذا وهذه دبل قوة ما قوة قيمة هذا اللي جالس وقف عنده واسمعني ديسكونت. waan gartay qadkii ugu jir cabdi hadii su'aalo dheeriis adaad haysid saad u weydiisid muhibo muhiba sariiraha iskorsaarka aan hayno wuxuu yiri double ma laha double waa single tan hoosena waa single tan korona waa single marka ma hayno double cabdi waan filayaa ina levelka waxaa ka wada ayaga waxay kala yihiin iskorsaarka waxay kala yihiin kuwa oo half ah oo ciyaalka 3 year 4 year kuwana waa ilaa 3 year to 15 year ama 18 oo kusoo xakar cunuga xagga dhererka xagga dhererka mas xagga balaca dhinaca balaca iyo dhererka labadaba okay hay waxaan haynaa normal bank bedka ahay oo caadiga ahay oo ciyaalka ay ku seexan karaan teenage ku seexan karaa ciyaalka yarku ku seexan karaan any age kulli ku seexan karo marka age gooniye ma anaga u sameeyna hadda walaakiin waa bank bed lagu wada seexan karo waxa kale intoodun haynaa oo different hadda bank bed yaro bank bed la dhahaa diskorsaarkaas okay maxaa uga duwan yahay turkishka hore ama dukaamada hore waxay sii jiray alaabahana marka aad soo galno xilligaas oo bedel badan ku dhici jiray kabirina muxuu uga duwan yahay oo dhinaca oo quality-ga sidaa sheegtay waxaan uga duwanahay quality-ga naftarkiisa waxaan haynaa alaab taayad leh alaab ku anfici doonto oo muddo dheer ah hayso doonto haddii ay wax ka noqdaan amba alaabtaas ay ku qanci weysaan waxaan diyaar u nahay inaan ka bedelno oon maaragtay alaabka ku qanacsan tahay ku siiso taas aan ku siino sorry taas ayaan uga bedelanahay marka waxaan haynaa quality okay addresskina meesha ka arki doona waan soo booqan doonaa adeeg badan oo soo qaaday inshallah waayahay cabdi sidoo sheegay hadii beedmo adresska ama ciwaanka wuu arki doona daqiiqada kadib aad buu mahadsan yahay cabdi oo London jooga cabdi iyo daawadayaasha kale waxaan jeclahay markaan muuqaalka inaan dib ugu laabano aad inoo dulmartidna si daawadayaasha daneemaya inay booqdaan xarunta ganacsiga ama dukaanka ganacsiga Inagol sida image barnaamijka ay ka arki karaan daawadayaasha aan jeclahay bal markaana inay daawadaan soofaha waxaa xilligan laga dhigay 1300 oo baan kaliya halka alaabta qolka caruurta lagaga dhigay 999 baan oo kaliya shirkadda Inagol Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis gaaraya ilaa iyo 60% dhammaan alaabta guryaha waxa lacag dulsaar ah ama riba lagama qaadi doono waxaana lacagta u dhiibi doontaa si tartiib ama waliba bilbil ah haddaba hore u gaar oo booqo xarunta dukaanka Inagol Home Furniture oo ku taala degmada Croydon ee koonfur galbeed magaalada London wixii faahfaahin inta dheeraada fadlan kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda shirkadda alaabta guryaha Inagol Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis ballaaran oo dhammaan alaabta guryaha qiimo dhimistan ayaa socon doonta bilo kooban oo kaliya waxa ay shirkaddu qiimo dhimis ku sameysay sida sariiraha jiifka oo ka bilaabanaya 1299 baan oo kaliya sariiraha loogu talagalay qofka kaliya oo leh meelo lagu kaydsado
ayaa waxa ay ka bilaabanayaan 299 geni oo keliya. Soofaha waxaa xilligan laga dhigay 1300 oo baan keliya, halka alaabta qolka carruurta lagaga dhigay 999 baan oo keliya. Shirkadda Inigol Home Furniture waxa ay samaynaysaa qiimo dhimis gaaraya ilaa iyo 60% dhammaan alaabta guryaha. Waxa lacag dulsaar ah ama diba lagama qaadi doono, waxaana lacagta u dhiibi doontaa si tartiib ama weliba bilbil ah. Haddaba horey u gaar oo booqo xarunta dukaanka Inigol Home Furniture oo ku taala degmada Croydon ee koonfur galbeed magaalada London. wixii faahfaahin intaa dheeraada fadlan kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda. hayaan filay daawadaasha qaasatan daawada cabdi oo jooga magaalada London inuu qortay ciwaanka daawadaasha kale qadadkuna ay buuxaan ruuxaantiina qaybihii dambe barnaamijkeenu ku sii siqanayno iyadoo daawadaasha qadadku ugu horeeyay inta telefoonada reebtay ee qadadku isu suurtagelin in ay ka mid noqon karaan sida sheegtay muxibo ka socota shirkadda Inigol inay daawadaashaas ka mid noqdaan ama laga yaabay qaarkood inay ku guuleystaan in ay helaan abaal marino. ويا قد كحيجا نصيبك يا شباب برنامج كنا عاوي يدو سؤاله أي بدنيهين قد كحيجا. هلا والسلام عليكم. عليكم السلام. فضل مجا عاجة يا هل كجوكتين. استرلين وحن كصهر لا يا لندن. استرلين يسود وانفيل برنامج كنا الله سعودي. ها والله السعودة آتي واد ما سنتي الواني سلام أذيك أبايب. واد ما سنتي. وحن أبايب ربينا نويديو. الله أي ست صوفي يلا أنا بدلان ربا. هيه. مركا ما سميان أيجا. أوكي. ما يجا مركا ورك سوق قدادو رالية. ماي أيجا كم سوق قدين وحن كسوق قداي كلم. واد ما سنتي هاي محبة. سترلين waxa ay ka hadlaysaa waa in offer aan sameeyay 2015ka oo ahaa qofka markuu soo hore haysto inaan ugu badalno 400 oo geni macnaha alashan aan ka dhino 400 soofaha cusub uu qaadan doono taasay ka hadlaysaa sterling ay 400 waxaan haynaa offer ka si fiican oo aad ka heli karto ma aragtay wax zaaid uga jaban marka ma aha 400 oo kale soofahaaga kulay ma qaadayno waaga hore soofaha waa qaadi jirnay waxaan sii jirnay charity-daas ayaa waxay sii jirta dadka masaakiinta ee oo u baahan taasan 400 oo geniya uga dhimi jirnay laakiin hadda waxaan haynaa 400 iyo ka badan soofa way ka jaban tahay marka hadda kuraasi waxay qiimo ahaan way ka jaban tahay marka aniga ayada waxaan dhihi lahaa waan u sameyn karaa offerkaas 400 kuraastana meeshay doonto ay geysan karto 400 waa ka dhimi karaa laakiin waxba ma u tarayso waxaan haynaa offer aad iyo aad uga sii fiican aan offer grain doono sterling hadii ay iigu timaado meesha marka offerkan cusub hadda sanadkan 2016ka ayaa aad uga fiican kii hore ayaan dhihi lahaa sterling oo joogta magaalada London oo filaya inaad qorato telefoon lambarka shaashada barnaamijka ka daawanaysid si wanaagsan la xiriir barito iyo waqtiyada shaqada iyo saacadaha shaqada aad baad u mahadsantahay sterling kamid ah daawadaasha barnaamijkeena caaw u suurta gashay qadadka kala jecel bal markaan in badan oo kamid ah dulqaad ay muujiyeen aan hore ugu ballan qaadanana fursad inaan siin qadka xiga halo assalaamu calaykum alaykum salaam fadlan magacaaga iyo halka joogtid xamdi London xamdi oo joogta magaalada London xamdi soo dhaw waan filay barnaamijkeena la socotay aad iyo aad idin salaama waad mahadsantahay soo marka waxaan rabay gabadha inaan weydiiyo kuraasta qadada aan rabaa haye soo marka miiska aad u weyn yahay asagoo yar ma heli karaa وياي قد كي يجر حمدي محبة ها حمدي waxaa heli kartaa miis cabir alla cabirka adiga aad rabto ayaa heli kartaa waxaan haynaa any size adiga jecel qofku uu jecel yahay amba gurigiisa u gali karo amba hadii la yiraahdo jikadiisa u gali karo marka waan haynaa okay waxaan kaloo ku weydiin lahaa abaad kuraasta marka maxaa way leather miya kuraasta maxay ka samaysan yihiin kuraasta waxaan haynaa leather waxaan haynaa maryo qof waxay ku xiran tahay wax alla wuxuu qofka uu rabo marka waxa heli kartaa wax alla adiga waxa jeceshahay adiga dalbanaysid colorka adiga dalbanaysid adiga dalbanaysid colorka adiga dalbanaysid in wixii lagaaga sameyn lahaa leather haday tahay iyo haday tahay maryahaba okay aada u mahadsantahay inaan ku arkana aada u rajaynaa ya insha Allah taala insha Allah abba waxaan kaloo idinka codsan lahaa kuraasta iyo miiska inaan lagu qoodo iyo natustiin korka le naga tusaysiin lugahooda waa lugu aad iyo aad u weyn oo u xoog badan waa qoray ma ahan ay sheeg waxyaabo la isku dhajiyay aba laga sameeyay waa solid wood waaye waa qori adag oo jabin waxaan jeclaan lahayn inaan hoosta ka aragno korka kaliya ka arkay qofta hoostana inaan ka aragno say u sameeysan yihiin been ma ahan waxa gali kartaa website-keena markay gashid waxa arki doontaa sawirkii oo complete ma aragtay lugihii meel walba oo laga tusinayo
okay aada umahadsan adaa mudan macaan waayahay xamdi oo joogta magaalada London aad baa mahadsantahay kamid doodasha barnaamijkeena in kala qayb qaatay qaybihii dambe barnaamijkeena ku soo gabagabeynayna waxaad tiri haddaan dib u xasuusiyo 25 bishan March xafladda ka dhacaysa magaalada London qaas ahaan hotelka weyn Millennium Hotel ee loogu talagalay xafladda in lagu caawiyo dadka Soomaalida ah ee dhibaataysan qaasatan dadka danyarta dadka isbitaalada ku jira dadka bukaanka intaba ee ururka Alpha Trust waxaad sheegteen maalinta cidii timaada inay ka mid noqon doonaan dadka abaalmarinada heli doona nidaamka abaalmarinada lagu helayo waa sidee waxa la weydiin doonaa su'aalo waxa jiraan su'aalo aan soo diyaarsanay oo weydiin doono qofku marka uu ku guuleysto uu heli doono hadiyadaas waxa kamid ah TV waxa kamid ah cafe table waxa kamid ah hadiyooyin kale intoodan hadda aan kulli meesha ku soo wada koobi doonin karin amin waana cidii timaado kaliya habeenka waa cidii timaada ma jiro telefoon sawirad ma laha waa cidii ka soo qayb gasho oo halkaas joogto su'aalan weydiinayna su'aasha qofkii ka jawaabto qofka doonto ahaato hadaa doonto su'aasha 2 jeer 3 jeer ku guuleyso intaasoo gifti meesha kala soo hoyo habeenkaas city tan kale ugu fiican waxa waay ma taqaana qofkii ibn aadanka giftiga kaliya ma ahan inuu qofku hamiyo ba waxa ka sii fiican inaad caawisid ilmo yaro xanuunsan oo ku baahan inaad caawisid oo u timaadid habeenkaas ayaa ka sii qaayawin oo ka sii qiimo badan giftiga heshid waayahay muuqaalada iyo xayisiimaha ku saabsan xafladda hadii beedmo waxay daawadayaashu ka arki doonaan telefishinka Universal iyadoo ay ku beegantahay maalinimo Jimcaha 25 bisha March ay ka dhici doonto magaalada London waayahay aad baad u mahadsantahay daawadayaasha ugu dambeeya dadka badan aan jecelahay inaan fursadan uga faa'iideyno in badan oo kamid ah waxaad qoran kartiin sida shaashada barnaamijka gaarkiisiin qaybta kore ee stuudiyaha waa telefoon lambarka la soo wacayo ee xagga stuudiyaha laakiin aad qoran kartiin telefoonada kale ee ah shirkadda Inagol telefoonada kale xiriiri kartid maalmaha shaqada iyo waliba waqtiyada shaqada maalmaha shaqada marka aan qaasatan maalin walba furantiin aan filaya waxaan furanahay 7 cisho okay saacadaha furantiin adoo raali isniinta ilaa jimcaha waxaan furanahay 10 ilaa iyo 7 habeenimo waa 4 saac subaxnimo ilaa iyo 1 saac habeenimo bas qofku sidoo yaqaan marka axadda oo kale waxaan furanahay 11 o'clock waxa waaye 11 ilaa iyo 6 galabnimo waxa weeye 5 saac ilaa iyo 12 saac qofba sidoo yaqaan aad baad u mahadsantahay maalmaha shaqada aan iraahdo maalin walba tiri iyo waliba saacadaha shaqada oo kala gadisan maalinta axad maalinta kale isku mid yihiin daawadaasha ugu dambeeya iyo qadadkii ugu dambeeyay barnaamijkeena caawa halo assalaamu calaykum السلام عليكم ولا لا وعليكم السلام ورحمة الله فضل magacaaga iyo halka joogtid walaal Zainab baa leedahay London Zainab oo joogta London oo filay barnaamijkeena la socota Zainab si fiican walaal waxaan rabay inaan weydiiyo inanteena meesha fadhida ma sha Allah waan horta leenahay ilaahay ay noo siyaadiyay gabdhaheena la shaqeynaya cid walba waan gartay waxaan rabay soofiyaasha waxaan maqlay way qaataan dukaamada Turkida wala waanan garanayn ka qaata soofaha hore hoosita way qaadanayaan waxay ka iibsanayaan soofii oolka ahaa marka arintaas baan rabay inaan maarta ka ogaado inta ma adoo ku hayaan oo ka iibsanaysaa kaagi hore oolka ahana qaadanayaan waayahay Zainab qadkii ugu jira hadii su'aalo dheer yaad u baahatid saad u weydiisid muhiba Zainab way jirtaa taas waxay aheeday waagi hore sidaan u sheegay British Heart Foundation waxay la lahaayeen xiriir aan la lahaynay waxaan sameey jirnay soofaha qofku uu haysto markuu iska bedelayo waxaan u qiimeey jirnaa 400 gini markuu soofa cusub uu qaadanayo waxa la sii jiray dadka masaakiinta oo waxba haysanin sidan gabadhii hadaata aan ugu sheegay soofiya hadda ma qaadano laakiin 400 gini waa wili still waa laga dhimi karaa marka timaado oo aad doorato maartay fadhi adiga ku anfaco amba aad ka hesho waxaan sadhihi lahaa waxaan haynaa offer ka sii fiican oo intaas in ka badan ka maartay laga jibiyay amba laga dhimay waayahay Zainab oo joogto magaalada London waxay faafahin dheer iyo waqtiga inagu yar waxay ka qoran kartaa telefoon lambarka shaashada barnaamijka ay ka arkayso daawadaha ugu dambeeyay barnaamijkeena caawin kaga mahad celinaa daawadayaasha in badan oo kamid ah dulqaadka muujinay sida wanaagsan ee barnaamijka kaga qayb qaateen iyo su'aalaha kala gadisan ee barnaamijka ku aadana balse qadka ugu dambeeyay halo assalaamu calaykum عليكم السلام fadlan magacaaga iyo halka joogtid magacaygu waa hooyo Soomaali oo joogta London hooyo Soomaali soo dhawan filay barnaamijkeena la socotay waxaan rabaa inaan weydiiyo gabadha haye alaabta jiifka ha oo macajoodariga wata si wanaagsan marka kan ugu raqiisan meeqa waay kan ugu qaalina meeqa waay mahadsanid hooyo Soomaaliyeed daawadii ugu dambeeyay ayaa tahay waxaan jecelahay inaad sii daawatid su'aashaasna waxaan u gudbin doonaa muhiba hooyo Soomaaliyeed ayaa ugu dambeysay barnaamijkeena aad iyo aad bay u mahadsan tahay kan ugu raqiisan aan hadda hayna waxa waaye ilaa iyo 1500 asaga macalin joodarkiisa
asagoo waliba sariir storage leh oo maaragtay saan sheegay alaab quality leh oo fiican ay tahay kan ugu qaalisana waxaan gaaraynaa ilaa 4,000 xataa waa gaaraynaa marka waa alaabtii kala price ah marka hase ahaatee ayadoo qaali ahaa jirto kan 4,000 aan gadi jirnay amba 4,000 jajabka aan gadi jirnay maanta waxaan gadaynaa 3,000 waxa laga yaabaa wax lamid ah marka wax walba waxbaan ka soo jibinay marka waxa laga yaabaa hadda kan ugu raqiisan qofku inuu ku yiraahdo laakiin markuu dukaanka yimaado uu ka helo kan ugu qaalisan oo qaata kan ugu qaalisan laakiin su'aasha ay weydiisay waxay ahayd 1,500 ayaa macallin joodarigeeda aad ku heli kartaa hurdo dhan oo iswadato oo sad ah ayaa ku heli kartaa jiifkii oo dhan armaajadii sariirtii komadiinadeedii tii cadarada joodarigeedii waxaas oo dhan waxay ku heli kartaa 1,500 waayahay hooyo Soomaaliyeed ayaa ugu dambeysay qadadka teleefanada aad baynu kaga mahad celinaa inta kale uu soo suurtagelin waynu ka xunnahay balse waxay kala xiriiri karaan shirkadda teleefankeeda oo ah shaashada barnaamijka ka daawanaysid qaybta hoose ee shaashada barnaamijka aad kala xiriiri kartid maalmaha shaqada iyo waliba saacadaha shaqada waxiba ugu dambeyntii waxaanu soo gaarnay gabagabadii gunaanadkii barnaamijkeena caawa fariintaada ugu dambaysa daawadayaasha fariintaydu wax ugu dambaysa waxay tahay inaad ka faa'iideysataan inta uu seel ka socdo 60% waxaan stoorka yaala ama warehouse ku noo yaala alaab aad iyo aad u fara badan oo waxaan dhihi lahay hadda dukaan kale aad tagtaan maybe inaad ku soo heshiin alaabti 2 u jibaar amba 3 u jibaar aan dhihi karaa laakiin maanta ay qiimo jaban ay ku fadhido marka waxaan dhihi lahay Soomaaliya meel walba oo joogtaan kulli maaragtay alaab guri mar walba loo baahan yahay ka faa'iideysta waa alaab quality leh islihiina alaabta 60 laga jibiyo ma aha alaab quality leh waa alaab aad u fiican oo quality leh haddii ay ku anfici weyso amba dhibaat ah ku qabtano diyaar ayaan u nahay inaan ka bedelno amba wax alla waxa aad jeceshaa markaas saytii aan ku siino waayahay muhiba oo kamid ah shaqaalaha shirkadda ganacsiga ee Inagol ee ah shirkadaha alaabta guryaha ee wadanka Turkiga barnaamijkeena caaw martiin ugu ahayd aad bay u bahsan tahay qaybaha dambe barnaamijka markaynu gabagabeeyno oo gabagabadii aynu joogno waxaad arki doontiin xayeysiinta barnaamijkeenu ku soo xireyno oo daawadayaasha wali aan qoranin ciwaanka shirkadda iyo waliba teleefanada laga xiriiriyo intaba ay ka arki karaan shaashada waxaan si guud ugu mahad celinaa daawadayaasha meel bay nagala soo xiriireen inta suurtagelin inuu ka xunnahay inuu jecelnahay barnaamijyada kala hadii beedmo in aynu ku kulanno waxaan sidoo kale u mahad celinayaa farsamadii Ali Xasan Saalax Ali Naaji stuudiyaha kuwaad fadhiyana kaga mahad celinaa farsamadii barnaamijku inoo farsameeyay xiriirinta waxaynu fadhiyaanuga Maxamed Saciid Saxaaf guud ahaan bahda barnaamijkeena caaw isku duuban meel baad joogtiin waxaanu kaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo isbalaaran oo dhammaan alaabta guryaha qiimo dhimistan ayaa socod doonta bilo kooban oo kaliya waxa ay shirkadu qiimo dhimis ku sameysay sida sariiraha jiifka oo ka bilaabanaya 299 baan oo kaliya sariiraha loogu talagalay qofka kaliya oo leh meelo lagu kaydsado ayaa waxa ay ka bilaabanayaan 299 geni oo kaliya soofaha waxaa xilligan laga dhigay 300 oo baan kaliya halka alaabta qolka caruurta lagaga dhigay 999 baan oo kaliya shirkadda Inigol Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis gaaraya ilaa iyo 60% dhammaan alaabta guryaha waxa lacag dulsaar ah ama riba lagama qaadi doono waxaana lacagta u dhiibi doontaa si tartiib ama waliba bilbil ah haddaba hore u gaar oo booqo xarunta dukaanka Inigol Home Furniture oo ku taala degmada Croydon ee koonfur galbeed magaalada London wixii faahfaahin inta dheeraada fadlan kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga